السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada habeen cusub iyo waa nisbada crown waxaan rabaa inaan ka hadlo su-aasha oo goormee ilmahayga aan kala hadli karaa markii dhinaca relationshipka iyo goormee ilmaha looga hadli karaa sex waxa uu yahay so sex hadaad waa taqaanin kulligeen soo malaynayaan I don't think kelmad oo hadda fiican ama isdhahayo waa isticmaali kartaa si aa usoo idin soo gaarsiiyey micnaheeda I can't think of it ma keeni kari so dadka badankood galmada ay dhahaan but whatever ay dhahaan sex muxuu yahay iyo goormee lagala hadli karaa ilmaha da-da oo munaasabka ah si oo cunuga lagala hadlo mawduucaasita muxuu yahay so one thing I rabo inaan idin sheego waxa waaye horta da ma jirto oo mucayan ah oo la dhihi karo okay cunugaaga markuu waqtigaas gaaro inaad kala hadashid waaye I know markaa ku nooshahay wadan muslim waxa waaye waxyaaba badan oo waxaa jirto laga xishoodo oo dadka ay ku hadleen badanaa waxaa jirto xishood weyna badanaa waalidka iyo ilmahooda ka dhexeeyo so and then there's sometimes aaminaada waxaa jirto oo haddii aan ka hadlo waxaa neegtoodan indhihiisa ku kala furaa cunuga gabar ha ahaato ama wiil ha ahaato oo wuxuu u jeedina aan kusoo jeedina but in reality runta markii la sheego iyo waqtiyadan aan hadda ku noolnahay waxa waaye ilmo horta cunug oo indha xiran ma laha cunug kasta wax kasta wuu ogyahay knowledge oo kuuna kaa maskax weyn yahay cunug waxyaaba badan oo isaga ogyahay jiro ada ogeyn because wadamada aan hadda joogno ilmaha waxa waaye access oo waxay qabaan internetka social mediada waxaanayda oo facebook youtubeka snapchatka whatever ay dhahaan waxa waaye ilmaha they have access to it and xataa iyagoo raadinaynin wax xun marmar maybe kelmad qalad ah intay ku qoraan computerka inay waxyaabo kaleeta ay soo bixiso so ilmaha more knowledge ay qabaan waxaa kaleeta ay qabaan saaxiibo wadankaalaa ku noolnahay wadan oo waxaan ku noolnahay waxyaabahii oo ceeb oo ceeb waa la dhihi jira caadi noqotay wixii laga xishoo jirayna oo waxa noqdee wax lagu faano so ilmaha marka waxaas way kusoo dhex koreen saaxiibadoodaa soo binayaan saaxiibadooda ka hadlayaan videos aa loo soo diraa picture aa loo soo diraa waxa waaye pressure badanaa la kor saare so waalidka ay mas-uuliyadda saaran tahay mawduucaasayt inuu ilmaha kala hadlo waalid badan oo waxaan arkaa dhahayaan hadda wax soo maqli usaa ii sheegaayo haddii oo rabo inuu ogaado usaa ii sheegaayo markaa sugtid cunuga inuu ku imaado cunuga wuu xishoonaya isaga naftarkiisa midda kale wuu ogyahay dhaqankeena iyo diinteena iyo waxyaaba laga xishooda inay jiro so he knows waxaaseet inay ceeb tahay oo waalidka mala imaanayo laakiin waalidka markuu furo albaabkaaseyta oo cunuga weydiiyo waxyaabahaaseyto ama uu kala hadlo then cunuga wuxuu baranaa it's normal inaan ka hadlo caadi waa ina aabiyey kala hadlo caadi waa ina hooyaday kala hadlo mawduucaaneeto runta haddii la sheego ma aha markii sex laga hadlo wax xun ma aha haddii yacni waxa waaye wax oo diinta ah oo human nature ah oo diinta ajir lagu helaayo qofkii sax u suubiso oo dhinaca xalaaleed u marto so cunuga ma rabna ilmaheena wiilasheena gabdhaheenaba inaan ka cabsi siino oo fikrad waxa ka dhaadhicino waxaaneeto kacarar wax xun waaye nasty waaye whatever aan dhahno waalidiinta ay isticmaalaan it's not true anaga waxaa la rabaa inaad sax wax uga sheegtid it's beautiful thing it's wax fiican waaye you know markii jidka saxa ah loo maro wax kasta oo fiican jidoo leeyahay inaa loo maro jidkiis qofkii marto faa'iidadiisa helaysaa laakiin jidka qaladka ahna inaa la iska ilaaliyo iyo sida la iskaga ilaalin lahaa in cunug loogala hadlo midda kale inaa cunuga markaa kala hadlaysid waxay ku xiran tahay cunugaaga majuurnimadiisa halhee la eg tahay you know majuur ma yahay psychologically maskaxdiisa ready ma tahay inuu waxaas ka hadlo so kaasna waxaa qiyaasi kara waalidka aa qiyaasi karaan mawduucaasayto so cunugaaga fiiri adi asaas gareey badanaa waxaa iskoolka waxay ku bilaabaan 8 jir markuu yahay third grade waxay ku bilaabaan health education ay dhahaan so third my fourth ay ma laha fourth grade health education lagu bilaabaa and then fifth sixth waa sanad kasto more information aa la siisiina so adigana inaa waxa waaye dhinacaaga informationka aa ka siisid aan always aa dhehdeed it's good inaad dhinacaaneeto oo wastiga aa ka ogaatid see wax u wadaan laakiin anagana diinteena saan ay dhehaysaa ee faraysa aan dhinacaana anagana u marna so it's very very important waalidka inay mawduucaasayt ilmahooda kala hadlaan and ay kala hadlaan very early age ha sugin ilaa cunugaaga 14 15 16 oo ka gaaro because by that time waxa waaye
هو waa dhamaatay yacni information maskaxdiisa way weynaatay informationna meel kastoo ka hela so anything else aa ku zaa'idisid markaasito it would be hard way adkaanaysaa inay maskaxdiisa gudubto oo laga dhaadhiciyo laakiin markuu 8 jir yahay 9 jir yahay aad haddaa tartiib kala haysid so yaa saaxiib qabo these days you know who has a girlfriend haye ada dadka girlfriend iskugu jirtaa girlfriend macnaheed maxay tahay markii aan gabar la hadlayno waxa spaceka oo noo dhexey kara muxuu yahay si aan u wada hadalno is it okay gabar inaa la taabto you know inaa gacantaada saartid like okay so wadankaneeta caadiya ka tahay but diinayan adi you know gabadha ma taaban kartaa dhexda ma ka qabsan kartaa gabar ma shumi kartaa you know diinteena oo haddaa shumsid maxaa dhacaya so diinta maxay dhehaysaa I know saaxiibada dhan waa suubiyaan maybe laakiin annaka diina annaka neceliso so maxaa waay dambiga nooga imaan doono you know zina maxay tahay inaa loogala hadlo waa cunugaaga inuu ogaado waaye by age 10 hadduu gaarsiisan yahay he should be able to talk about zinada maxay tahay you know what does zina mean dembigeeda muxuu yahay ciqaabteeda maxay tahay so cunuga ilmaha waxa waaye waa caqliga leeyihiin maskaxdu way furan tahay and the more knowledge aa adig ku shugtid the better wala dhaqmayaan markii ay banaanka aadaan then they know wixii qaladkii wixii saxa ah and I always tell ilmaha waalidka ani haddaan waalid ahay waajibkayga waxa waaye inaan knowledgeka ku siiyo you know ilaahay mas-uuliyadda u isaar waxa waaye inaa cilmiga uu ilaahay isiiyo inaa adig kugu shugo okay go-aankaadaa iska leh haddaa qaladka martid aduu og saxda aday ku taala adi ilaahaygaaga waay laakiin ani waajibkayga inaan ka baxa waaye and I have to give you that knowledge so anigu naftarkiisa inaan mas-uul qof inuu yahay inuu dareemo waayo oo go-aankaas isaga gaari karo wixii sax ah iyo wixii qalad ah wuu og yahay and then hadduu qaladka maro decision oo isaga suu biyo waayo and it's okay waa ka hadli karnaa tuu markaa qaladka suu bisid and that's another thing inaa ilmaha la ogeysiiyo qalad waa galaysaa perfect batihid weligaa every time qalad aa galaysaa because qofka qalad gelin wax ma u barato laakiin it's okay markaa qaladkaas gashid soo noqo waa ka wada hadlaynaa haddana okay waxa kasta waxa waaye ilaahay qafuur raxiim waaye waa laga tooba keeni karaa laakiin waxaa toobada important ah and you need inaa waalidkaaga kala hadashid inaa ilmaha laas laga dhaadhacsiiyo waxaa rabaa maanta inaan kuu soo gabagabeeyo mawduucaaneeto very important waaye ilmahaaga inaa kala hadashid sex iyo sex education inaa ilmahaaga qiyaasi kartid maskaxdooda halahay la eg tahay iyo halaha information ay handle garay karaan just because sex yaa ka hadashid does not mean inaa cunugaaga dhinaca sex aa ku riixoosid ama inaa maskaxdiis ku kala furoosid wax uu isaga ogeyn ama iyada ogeyn waa ogyihiin already ilmaha so you just normalizing that this human nature waaye wax human nature waaye inaa qofka ay rabto inay desire lahaato inay qof rabto inay you know sex lahaasato laakiin waxaa jiro waqti munaasab ah meel munaasab ah iyo xiriir xalaaleed ah inuu naga dhexeeyo waxaa kaleeto also it's very important inaa parentska ee maskax naftirkooda is educate gareeyaan so inaa akhrisid waxyaabaha oo bugaagtaasayto inaa waxaa jiraan wax oo parent workshops la dhaho laga hadlaayo cunugaagsi kala hadashaa mawduucanayto amase ugu furta ugu bilowdaa inaa ka qayb gashid cunugaaga inaad dhageysatid dhageyso is very important as much as aa awoodid inaad dhageysatid because markaa cunugaaga dhageystid waxaa ogaahaysaa heerka uu gaarsiisan yahay maskaxdiisa and inaa markaaseeto information kale ugu dartid and always cunuga validate gareeya cunuga inuu qof knowledge leh yahay fahamsiiye inuu informationkiisa anything oo kula imaado inay okay tahay oo wax ceeb la dhaho markii oo wiil iyo waalid dhexdooda ma jirto waa inaan ka hadalnaa wax kasto waa inaan wax kasto annaka go-aan isla gaarnaa waa inaan mawduuc kasta u fiirinaa dhinaca oo wadankan aan ku noolnahay iyo diinteena maxay dhigaysaa so intaas iyo waa la soo dhigraa waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.